kulan ballaaran oo isugu yimaadeen waxgaradka aqoon-yahaniinta culimadiinka iyo dhalinyarada jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ee ku nool dalkani Koonfur Afrika kaasoo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo quseeya jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. ugu horreyn kulankan ayaa waxaa furay Bashiir Cabdi Xasan isagoona faahfaahin kooban ka bixiyay ujeedka kulankani ay isugu yimaadeen jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. kulankan ay ka hadleen qaar ka mid ah aqoon-yahaniin waxgarad culimadiin iyo madaxda jaaliyada Soomaalida gobolada dhexe ka soo jeeda ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa waxa inoo bilaabanaya xafladii xaflad gunaanad u ah shirar iyo wada tashiyo u soo socday jaaliyada gobolada dhexe ee South Africa. shirarkaas oo maaragtay ujeedooyinka looga hadlayay intooda badan ama looga tashanayay ay ahaayeen maamul subaynta isku duubnidu waxa ay faa'iido u leedahay qofkeena maxaan ku yiraahdaa weyn midkeena yar keena taagta daran oo maxaan ku yiraahdaa daciifka keena maxaan ku yiraahdaa wax ismoodahay oo Ilaahay maartay wax waafajiyay dhammaanteen qofka kala ka maarma nuguma jiro. sidaas darteed waxaan loo kaga baahan yahay walaalayaal inaan isku duubnaano annaga oo maxaan ku yiraahdaa cabirayna meesha aan joogno. jaaliyadan maanta halkan laga dhisay in wax qabadkeeda wada jirkeeda dhismaheeda iyo isku duubnaanteeda oo South Africa laga xambaaro loo xambaaro Soomaaliya laga bilaabo gobolada dhexe isku duubnaan iyo isku tiirsanaan iyo nabadgelyo iyo midnimo laga dhiso oo keenta Soomaaliya oo dhan say ubuucda ugu tahay Soomaaliya oo dhan inay midowdo oo dhibaatada iyo xarajka iyo waxa saaran dhammaan ay ka baxdo. hadal macaan waa qorankana laakiin gelintiisa la iska rabaa inay gelisaan waan ku faraxsanahay dhalinyaro taqaana sida wanaagsan u hadlay oo ka muuqato wax la yiraahdo aragti. waxaan idin leeyahay walaalayaal midnimadaas la soo jeediyay inaad samaysaan ka soo jeedo gobolada dhexe waxaan ugu baaqayaa in dhaqaalahooda ay geliyaan gobolka ay ka soo jeedaan. gobolka asaga dhaqaalaha u baahan ayakuna insha Allah dhaqaalaha ay uga helaan meelaha kaleeto mid ka badan bay uga heli doonaan gobolka. inaad sameeyaan waxyaabaha gobolka u baahan yahay inaad maalkiina gobolka la aadaan oo ka furataan takeedaha iyo aeroboorada iyo waxyaabaha loo baahan yahay inaad dhaqaalihiina gobolka ku laabtaan adinkoo midaysan. taas waxaan ugu baaqayaa ganacsatada ka soo jeedo gobolada dhexe inay ku laabtaan ganacsigooda ay ka bilaabaan kana sameeyaan wadankii iyo gobolka ay ka soo jeedeen. waxaan rabaa inaan wax yar ka iraahdo sidoo ogtihiin Soomaaliya dawlad baa ka dhalatay wala dawlad goboleedyay iyo dawlad ku meel gaar ah waqtigeedu dhamaaday ayaa jirta inaan dawladda Soomaaliyeed uga mahad celino marka koobaad safaaradda ay soo direen safaaradii koobaad ah wadankan South Africa ee uu safiirka ka yahay Said Sharif. sidaas la mid ah waxaan rabaa dawlad inaan ugu baaqo qof muslima oo Soomaaliya oo la badbaadi karo inuusan ciidamada dawladda sababsan isla markaasna ciidanka arrinta laga sheegayo oo la leeyahay maaragtay mararka qaarkood inay arrimo qalad sameeyaan in arrintaasi la xakameeyo oo ay ciidamadu u dhaqmin sida ciidamada wadan kala qabsan. iyada waxaan leenahay maantay duca qaata oo xabada la joogteen dadka goboladaas ka soo jeeda dhammaantood waxaan leenahay ka wada qaybgala dhismaha guud ee wadanka Soomaaliya gaar ahaan gobolada aad ka soo jeedaan na ka qayb qaata. gabagabadii kulankani ayaa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya Bashiir Garweyne waxa uu shaaca ka qaaday inay ku soo dari doonaan maamulka qaar ka mid ah jaaliyadaha gobolada dhexe ee ku nool dalkani Koonfur Afrika kuwaas oo aan ka soo qayb galin kulankani ay yeesheen jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya. Cabdinaasir Sooman ee telefishinka caalamiga Universal TV Johannesburg.